بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشayda qiimaha iyo qaayaha leh ee mar walba igala xiriira bartan aan YouTube-ka ku leeyahay ee Shukri Muuse Talent Channel walaalahayga qaaliga ah ee channelkan aan ka wada xiriirno mar kale soo dhawaada mar walba qof walba waa ogyahay wax loo sheega ma aha qof weyn in channelku saacidaad rabo oo khaasatan subscribe-ka iyo like-ta iyo inaan qofku comment ka soo bixiyo maxay ahaydey sida uu barnaamijkaas u arko hadduu ka helay hadduuna ka helin iyo in maaragtay qofka nala xiriiraya ee aan isku xirannahay ee aan saxaabta nahay ee aan saaxiibada nahay ee aan family-ga noqonayno mar haddii dadku wada joogaan waa wada family maxay ahaydey qoyskayga ka mid noqonaya waa in aan ka helaa samaan iyo xumaan siduu u arka channelka sidaasna anigu kolley jecla qof walbana uu jeclaan lahaa sida ila tahay marka asxaabey saaxiibayaal waxaan idin leeyahay commentiga nagu saacida sidaad u aragtaan barnaamijyada sida aragtidiinu tahay la wadaaga asxaabtiina iyo saaxiibadiin like-ta iyo subscribe-kana waa noo muhiim mar walba channelka muhiim bay u tahay marka taa mar walba waa xusuusin un waxa waa qof walba wuu gartaa laakiin waan idin xusuusinayaa mar walba ta kale barnaamijkii taxanaha inoo ahaa oo ka sheekaynayay oo aan idin iri toddobaad buu noo socon doonaa oo title-kiisa kore uu ahaa cinwaankiisa ugu weyni uu ahaa burburka qoysaska Soomaalida ayaan weli ku guda jirnaa ayadoo gabagabadii kolley mid barnaamijkan iyo mid kale uu ka dhiman yahay haddii alla yiraahdo toddobaadkii aan ballan qaaday inuu barnaamijkaasi socdo waxaan kulankan ka hadli doonaa haddii rabbiga daa'inkaa yiraahdo sidii aan idin sheegaba daljoog iyo dibadjoog baan u kala saaray waxna way wadaagaan oo labada dhanba way wadaagaan ma garatay waxna waa wax daljooga maaragtay aan u gooni yeelayo waxna dibadjooga ayay quseeyaan dadku waa kala daruufo meelaha ay ku nool yihiin aawadeed marka waxaan rabaa inaan ka hadlo daljooga barnaamijkan inaan kusoo qaado daljooga waxa keena burburka qayb ka mid ah sidii taxanuuba noogu socday waxaan rabaa inaan kusoo qaado wiilka iyo gabadha isguursada ee dalka jooga dadka qaarkii unaan ka hadlayaa ma aha dhammaan jamiican maaha waa dadka qaarkii waxaa dhacda oo waxa sababa burburka qoysaska ka mid ah marka dalka gudaha dalka Soomaaliya laga hadlaayo wiil staabene ah oo shaqaysta oon dhibaato haysanin oo dadka shaqo la'aantu ku dhacday aan ku jirin oo dadka maaragtay dhaqaale xumida reerkoodu haysta aan ku jirin oo shaqaysta oo subaxi meel u foofa oo ka yimaada ayaa waxaa dhacaysa inuunan keer siinin ama aanu danaynin ama maaragtay qoyska asaga u dhisan gabadha asaga nolol wadaaga la ah ayaa laga yaabaa wixii la rabay inuu siiyo muhiimadii la rabay reerkiisa inuu siiyo inaanu siinin hadda ma haysato reerkaas ama wiilka reerkaas qaba gabadha qaba oo reerka u dhisan yahay ee caruurta ay u hayso ma haysato xaaladaha qaar dadka qaarkii soo haystay oo aan hore uga soo sheekaysanay kuma jira isagu ma aha nin poverty-gu uu waxyeelay ama dhaqaale xumo ba'ani ay la degtay ma aha nin reerkiisii la degan oo hooyadii iyo aabihii la degan oo aan asagu shaqo haysanin oo wiil yar ah oo aan mas-uuliyad qaadi karin haddana mas-uuliyad dusha u ritay ma aha waa wiil Soomaaliyeed ee guurgal ah meeshii laga rabay waa wiil ilaa iyo sodomeeye gaaray ama ku dhow ama ka badan ee xaas yeeshay ee caruur yeeshay ee reerkiisa asagu u foofo oo u baxo oo u soo galo cid kale inay noloshooda ku tiirsaneen ilaahay mooyaane bini aadan kale inay noloshooda ku tiirsaneen oo asagu reerkiisa fure iyo xiro u ah dhaqaalaha asagu u haayo inta uu shaqaysto reerkiisa kaafiso
maxaa marka dhibaatadu tahay xagee dhibaatadu ka timid waxay ka timid shalay gabadhan markuu soo guursanayo siduu ahaa waxoogo isbedel baa galay ya isbedel baa galay gabadhii caruur ay yeelatay reerkii raas maaragta maasha allah oo nagiyo wuxuu noqday ballaaranaya oo caruur ay ku soo biireen mas-uuliyaddii uu shalay soo qaaday sidii u soo qaaday ugama baxaya ninkan odaga ah wiilka reerkuu dhisan yahay cilladdu waxay ka imaanaysaa habacsanaan xaggiisa ka timid dhaqaale xumana maaha wax kalena maaha meel kalena kusoo warwareegin ma jirto gabadhan reerkan u dhaqaysa ee caruurta u haysa ee meeshan fadhida ee gurigan dhaqanaysa ee gurigeeda noolaynaysa ee teedii ka soo baxday ee cunada u karinaysa ee soo adeegaysa ee guriga kala hufaysa ee kala haadinaysa laga yaabo inayna shaqaale haysan oona tabartoodu ahayn laakiin iyaga uu ku filan yahay ya ay gurigeedii hagaagsato nadaafadsato nadiifsato cunada karsato wax walba odageeda u diyaariso ilmaheeda u diyaariso ka adag tahay nafteedu u qurux badan tahay haddana siday rabtay sida la raba ilaahay baa laga helaa mar walba siday rabtay aanay ka helaynin wiilkii qabay oo guriga u fadhiday oo reerkeedii uga timid oo mustaqbalka maaragtay isla hiigsanayeen oo mustaqbal isku darsadeen iyo reer isku darsadeen oo rabtay maaragtay inuu maadaama uu dhaqaale xumo haynin oo ku filan yahay dabkooda shidi karo meeshii ay ka rabtay shalay sida isku soo galeen inuu ahaado waxooga waxaad moodaa ninka odagaa inuu xiisay ya inuu xiisay ya mahmaha waxay tiraahdaa Soomaaliyeed xiisa maal ama xalaal adooga maxay tahay ninaad maanta isguursateen inta yaruu ku xiisaynaayo ood isku cusub tihiin maalku waa max waa lis maalku waa xoolaha Soomaal waad garanaysaan kulley Soomaalida inteeda badan way garanaysaa intay reer cusub maahane maalidu waa wax la maalo ee midigta lagu dhigo ee la liso ee adiga markaas ku irmaan marka ama xiisa maal ama xalaal adooga haleeyo xalaal aabaha xoolo aabaha kaaga dhintay oo dhaxal u heshay oo milkidiisi ah adigoo kaaga tagay oo cunugiisi ah wiilkiisi ah ama gabadhiisi ah xoolo aadan shaqaysan macnaha oo ka soo galay dhaxal kuwa maal oo waxa doonta ku sameeyso oo sa doonta ka yeel ayada qofku ku haysatay jirin ama qofaad maanta isku cusub tihiin xiisihiisa maal intuu ku xiisaynayo qofku wax kale ayuu noqonayaa nolosha uu ku gelinayna si kale u dhadhamaysaa waayo wuxuu ku siinayaa mudnaan badan oo marka kale aadan heli doonin markaad khaasatan keli isku tihiin oo dad guurkooda isku cusub yahay aad tihiin noloshuna alxamdu shukr rabbil caalamiin ay idin idishahay oo aadan cid kale u hoos tagaynina oo waalidba Allah ka dhigay ciidaad u gacan hoorsanaysaan aanay jirin noloshu aad iyo aad bay runtii u macaan tahay ya qofkaana qofaad isku qanacsantihiin iskuna cusub tihiin uu yahay isku cusaybkaasi wuxuu keenayaa aad inuu qofkaasi kuu daneeyo marka noloshu labadiina tahay ciyaal kale oo idin soo dhex galay oo aad dhasheen oo idin carqaladaynaya aanay jirin oo idinku aad isku tihiin laba dhalinyaro ah oo isla ciyaarto isla boodboodo wax walba isla samayso meel walba isla aado isla soo noqoto aadan gabadhaani ayna lug xiran maaragta caruurku lug xiran ayna noqonin ama waqtigeedii ninkan soo guursaday iyada kaliya uu u dhaxeeyo oo cid saddexaad uu kala dhaxeeyo waqtigu una jirin oo muhiimadda ugu badan iyaduna ay isaga siinayso isagana muhiimadda ugu badan uu iyada siinaayo markuu shaqada tago uu ka yimaado uu u soo xiisaayo gurigiisii waayo wuxuu og yahay gabadhan yar ee guriga joogtaa ee isla jaan qaadeen ee soo guursaday inay iyaduna u xiisayso isagay sugayso reerkeedii ayna la joogin dad ay aftaqaanay la sheekaysanaysa ayna jirin asaguna u soo xiisaayo gabadhuna ilmo kale iyo wax kale ku mashquusha ayna jirin maxaa meeshaas ka dhalanaya xiise aad u badan oo muwaafaqadii iyo wanaagii iyo jacaylkii la isku soo guursaday waxaa wehliya in aad dadkaani isu danaynayaan oo laba isu gooniya oo uun labadooda uun noloshu ka wada dhexaysa ay yihiin iskuna cusub yihiin marka la isku cusub yahay
alaaba marka la isku cusub yahay noloshu ay cusub tahay oo guri cusub markaas la yegleelay qof walba intiisa wanaagsan ayuu qofka kala tusaa dhabta qofka bini aadanka ah looma tago marka ugu horeyso guriga la yegleelo looma taga dhabta qof walba wuxuu soo kormariyaa intiisi wanaagsanid jacaylku qofkaanu haay xiisaha uu u qabo la gurigu waa cusub yahay adduunyo wada cusub nolol cusub dad isku cusub jacayl cusub ya jaanqaad cusub maxaa ka dhalanaya macaan lagu daray ya siday macaan lagu daray u tahay oo labadoodu ay isu ag joogaan hatta meeshan gurigan maxay ahaday labadan ay dhisteen oo reerka muslimka ah ku soo biiray dunida muslimka ku soo biiray maxaa looga dan lahaa inay labadooda kaliya is ag taagan yihiin may haddii ilaahay siinaayo oo allaha awoodda sare leh uu ugu talagalay inay awlaadi meeshaas ka dhalato oo tarankii maxay ahayd islaamku oo meesha maxay ahayd ka bilowdo ayaa loogu talagalay taranku markuu bilowdo oo gabadhu dhasho ayaduna xogo waqtigii ay odageeda kaliya siinaysay uu kala go'ayaa dhigna waxay siinaysaa ilmaheedii dhigna waxay siinaysaa odagii ya maxaa meeshaas ka yimid waxoogo ribad gabadha xaggeeda ka yimid asaguna muxuu jeclaa war waxaa la yidhahdaa wiilasha aan kaftameen raggu ilmahooda xataa waa ka hinaasaan ama waa ka masayraan qofba siduu u yaqaano maxaa dhacaya marka wiilkan inuu sirado wareedha qofka adag kaligaa ku koolkoolan jirtay guriga doymaad cunugeeda ilmahana markay yaryaryihiin aaday u dhib badan yihiin ya ma aha sahal maaha dhalidooda waxaa ka daran korintooda ya inta yaroo la dhalaayo ayadoo dhib badan tahay oo la ogyahay hooyada dhibaatada ay soo marayso haddana waxaa ka sii daran koriinshaha ilmaha iyo kala dhicintooda markay bataan weliba ay mid ka bataan iyagii way isdilayaan inaad kala celiso ood kala fujiso ood mid walba gooni u qanciso canug walba inaad isagana wixii uu kaaga baahnaa siiso waa ilmo yar sabar ma yaqaano odagiyoo yimid oo guriga yimid oo adiga aad islahayd jaaniskii maanta adigii canugaagu maanta o dhan aad isla boodboodayseene bal odagana aad jaanis siisid ayuu ooyayaa uu qaylinayaa oo wax rabayaa oo xafaayad in laga bedelo rabaa oo in la hurdo sii rabaa oo in wax la sii rabaa jaaniskuma siinaayo ya ninka raggaana waxaa laga yaabaa inuu siro allahu akbar ewel kaligaa hadeed waa lagu jeclay markaan waaba lagu nacay cunugiyaaba lagu mashquulay way dhacdaa wax badanaan usoo joogay waxaa dhacaysa inuu yidhaahdo aniga dacwaan ahayba asoo kaftan maaya soomaalidu waxay yidhaahdaan reer magaalku kaftanku wax isugu sheegaa ya wiilal kaftan maaya waxaan arkaa dhaha anigu dacwaan ahay maxaa dacwo u tahay reerka curadkoodii aan ahaayo anigaa laygu mashquuli jirayo guriga markaan soo galo lay koolkoolin jirayo maaragtay wax walba la ii samayn jirayo markaan soo qoysta kareem la ii marin jirayo maxaa kuu xaraar lay dhihi jiray hadda qofuba iima jeedo gabadhii waxay ku mashquulsan tahay halkaan canugoon dhalna weliba xataa asoo laba noqonin ya ay nolosheediiba waxay kasoo bixi la'dahay canugaas yarka maalintii intaan maqanaana asagay ku mashquulsan tahay markaan habeenkii soo hoydon guriga imaadana haddii xataa ay dhacdo inuu gelin dambe yimaado ama habeenkii u yimaado uu shaqada maaragta kusoo daaho wuxuu ku leeyahay weli canugii ma dhammaanintiisi weli waa noloshu ila haystaa daraftuu ku dhegan yahay ilaa waa ilmo yar asagu ma garto war maanta dhan adiga lugaay aabbaha caawa yimide ka qallay ma garto moogtahay ilaa intuu ka seexdo marka dhibaato waxaa jirta dhallinyarada dhexdeeda ka dhacda haddaanu wiilkaa reerkaas u dhisan yahay una noqonin nin sabar badan una noqonin nin waxeeriya una noqonin nin fahamsan inuu shalay labadooda ahaayeen maantana ilmo yimideen meesha mid soo kordhay weliba mid waaba laga cayntaa inta badan inkastoo gabdhaha qaar oo iyaguna iska masaakiinaho aan macnaha dadku isku karti maaha tabar buuran lahayn oo marka horeba caajislooyin ahaa halka cunugba ay ka badan waayaan mid labaad hadduu yimaado waaba ka kacba ya odag waaba darintaada laalaaba iska soco waay ya laakiin gabdho badanoo waxaa jira dirciinahoo maasha allah ahoo gabdho jira ahoo ilmahoodana haysta odagoodana xalliya ya laakiin mar walba ninka raggaahi wuxuu dareemayaa in ciriiri soo food saaray in gabadhan
intay kelida isku ahaayeen sida isku ahaayeen aanan ahayn noloshu oo ilmihii ay la wadaagayaan waqtigiisa maxaa markaas imanaya ragga qaar way u garaabaan gabdhaha oo waxay u jeedaan dhibaatada meesha ka jirta ilmuhuna waa ilmihiisii meel kale kama ayna keenin qaarna waxay dhibsadaan gabadhan ilmahan uun ka daba ordayso oo caawa hadduu soo hoyda xataa intay ilmaha ka soo jeesanayso ilmaha ka seexinayso aan asaga xoog u helin markaasaa asagu hamigii uu gabadha u haayey iyo rabitaankii uu u haayey iyo muhiimadda uu iyada siinayay ayaa asna way nusqaantaa markaasaa waxaa timaada inuu isaguna iska noqdo maaragtay qof yaroo iska careless oo marka hore day xanaaq yar iyo ilmahana gabadhan dhibay ay ku jirto marka dambe uu qabatimo si careless uu kusoo baxo oo iyadii intay ordayso ilmahan seexiyo odaga usoo jeesa isleedahay markay hadhow kasoo fara banaanaata oo iyadoo faraxsan soo ag fadhiisata ay tiraahdo oo yidha seexanaya aniga hortaabay qabatay iyadana maxay caawa dhan islaad mataqaana orodo maaragtay ilmahan kala xalliyo ciyow kala seexiyo si aad odagii adiga isugu soo madax banaanaatiin markay hawshaas kasoo faraxaato oo ilmaha meel saartaa laga yaabaa isagoo inuu maaragtay xogoo asoo gafuurka kuusahay uu yidhaahdo waqti waay jaa waxaa waay subaxina shaqa layga rabaaye maxay ahayday hurdaabay qabataba aniga waa iska seexanaya nush ma tahay mase ma ah gabadhi maanta dhanna taagneed ee reerkan u taagneed ee caruurta u taagneed ee wax walba u taagneed ee caawana isku dayaysay bal inay wax isku xagageliso inay caruurtii seexiso odagana ay jaaniskiisa siiso isaguna inuu waxaa laga yaabaa dhibsaday waqtiga dheer ay caruurta ku mashquulsan tahay yaa ilmaha cunugaa iska xanuunsan kara mid haddaa seexisa midaa soo kici kara midaa maaragta wax kaaga baahan kara waa runtii xaalad adag oo hooyooyinka ay ku jiraan ilaa hooyooyinkeena cafi waa u gargaar adigaa gargaaray ah yaa rabbilcaalamiin yaa wiilashina ay dhibsanayaan qofku markuu dhalinyar yahay waxaa laga yaabaa inuuna wax weyn si weyn uuna u fahmaynin dhibaatada qofkan haysata yaa waxaa jirta marka wiilasha qaar inay khalaas ka niyad jabaan gabadhani markay dhowr caruura dhasho mid iyo laba hadday u adkaystaan iyo saddex inay niyad jabaan oy ka niyad jabaan reerkan is yidhahdaan meeshaan nolol fiican kaagama soo socoto yaa mid kala balbaadi goob aan ilma haysan yaa ood nolosha intaas waa cawadii ku dhaaftaba waa cumri aan maqli jiray yaa ayayday allah u naxariistaa waxaan ka maqli jiray maanday habeenkii ku dhaafaba waa cimrigaagu ka mid yahay yaa marka cawadii ku dhaaftaba waa cumriye mid hadda aad isla jaan qaadaan oo hadda kow iskala soo bilowdin uun ilmo dhalino xataa asagu naftirkeeda waa aragnimo ku qaadanaya caruurtan moogtahay lagu mashquulay oo xataa ama islaan iska maaragtay iska dhalmagoysaho aad isaga nasato agteedu yaa ama aad kula heshiisa xataa heshiisaa jira moogta aad kula heshiisa maaragtay inayna dhawaanaan ilmo dhalin yaa si aad u nasato ood restigaaga iyo waqtigaaga aad u qaadato tan ilmaha ka daba boodbooday ku anfici mayse yaa abay heelana markay ogaato ninka inuu jiiro kala galay oona sidii hore ahayn ilan waxa waaye qof kaligaa kugu kooban iyo qof talantaali ah isku si ma ahanay xaaladda ogaatay intay bug tiraado samada ku dhigtay leed ilmaha guriga abarteen ka keensadaan ma guriga hooyada ilmahan kala imid ilmahaba asan ku arka aniga anoo dhexdii u yartahan imid gurigan buuq bilowgiis yaa waa la isku qaadqaada haddaan allah awoodda sare leh uunan xal keenin dhexdoodana waxay u badan tahay in inta la isku dhaco reerkaasi ku kala guuro waxaan macno lahayn oo basiidoo la xallin karo yaa wax aan macno lahayn inuu reerkaasi ku kala guuro wiilku inuu reer kale intuu samaysto gabadhaana markay ku ogaato qaraxdo masayrto yaa tiraahdo aniga ilmo aanan hooyaday ka keenin oo gurigeenni aanan kala imaanin oo gurigiisa aan ku dhaldhalay oo anoo dhexdu ii yartaho dhexdu taa ka tahay aan imiday muu maanta rabaa inuu maaragtaya aniga cillad igaga dhigo wallaahi inaanan ka yeelayn meeshaas maxaa ka imaanaya isku dhac maxaa dhici kara in reerkii islaamka ahaa ee meeshaas ka dhisnaa ee Soomaaliyeed uu sikan ku burburo si aan macno lahayn marka dhalinyaro markaan eedu ma noqonayso wiilasha oo kaliya gabdhahana waxaa laga rabaa inay 10 qofood kaligood noqoto halka gabar ee wiilku qabo inay dhowr gabdhood noqoto ay caruurtana xalliso odagana xalliso
ayna isi soo gaarinba ilmaha iyo odaga fiidki maqrib allahu akbar meesha lagu yiraahdo wanaad ilmaha ka seexsataa gabarey waxa si rabta siisaa bartaa wax ilmaha wixii la baro ayay maaragtay qabatimaya inaad ilmaha maalintii hore in ciyaarsiisood boobootiso xagga ula orodid say habeenkii ciyo kaaga seexdaan markay daalaan waxoodo dhan u dhameystirtid aad maqribka markii la dukadaba cishaha iyo maqribka dhexdooda carruurta kula dhaafin waa hadaad rabto inaad ilmaha aabahood iyo iyaga inaad isku haysa hadaad rabto waay hadday ahayn waxa waaye indharunay ku ooyaan ilmana hooyadooda ka dhacayso yaa marka intaasaan rabaa barnaamijku ma rabo inuu ula sii tago waa tusaalayn dhalinyaradan doonayaa inaanay sahal ku kala tegin reerkooda ayna sahal u burburinin wax yaroo maaragtay dadku waa indheer garad iyo indhow garad inaan waxaan rabaa wiilka yar ee dhalinyarada ahay reerka dhistay iyo gabadha yarba ay indheer garad noqdaan ayna indhow garad noqonin oo ay wax yar oo laga gudbi karo reerkooda aanay u duminin oo baashaal yar oo 2 maalmood ah aanay maaragtay wiilka raggaahina uunan reerkiisa gabar aan hadda asaga caruur u haynin inuunu ku duminintii caruurta u dhashay marka waxaan idin rajaynayaa inaad waanada yeeshaan oo qaadataan ilaahayna uu idinku hadeeyo inaad dariiq toosan wada martaan ilmuhu waa ilmihiina reerku waa reerkiina gabadhuna waa xaaskiinii marka sidaa la isugu dulqaato Soomaali Maxamed saasa la isugu dulqaato insha Allah barnaamijkan intaasaan rabaa inaan ku soo koobo hadii Allah awood sare la yiraahdo maxay ahayd uu ka raali noqdo barnaamijkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono wixii saacidaadana waa xaqiina nabadgelyo nooli kulante nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh